arintaas marka waa bogaadinayaa in alaaliya intii soo qaban qaabisay cadaaladda waa muhiim arinta kale oo ah tacadiyada dhacaya oo guud ahaan Soomaaliya ka dhacaya gaar ahaan gobolka aan joogno ka dhacaya wacyigelin bulsho oo dhameystiran bay u baahan yihiin in meel kasta la gaarsiiyana xaq bay inagu tahay qof walba oo wax garanaya maanta waana garanaysaa duruufihii adkaa oo xilliyadii dhaweed aan ka gudubnay iyo tacadiyadii ka dhacay gobolka oo ma ahan kaliya kufsi ama se ma garanaysaa gudniinka fircooniga ah laakiin tacadiyaal aad u tiro badan baa jira oo ay ka mid yihiin kuwa ardada laga galo oo hadda macallimiintii iskuulka inay joogaan baan filayaa iyo kuwa waxa weeyaan ma garanaysaa ii sheeg tacadiyaal ay مثلا nabadoonadu galaan oo kale iyo tacdiyaasha boolsal ka dhaca iyo kuwa ka dhaca ay jeelka intaba martuuliyadaas xuquuqul insaanka lagu ilaalinayo yaa iska leh oo mas'uuliyadaas ay saaran tahay waxa weeyaan baabuurta dadka laga dhacay moobilada laga dhacay wadooyinka ay mari waayeen habeenkii bay socon waayeen bulshada iyay ku leedahay waxaas oo hantiya iyo muxuu ahayd waqti oo ka maqan yaa lagu leeyahay yaa loo raacanaya marka si guud waxa dhihi karaa wixii saaran tahay qof walba waa mas'uul sidoo kaleeto waxa mas'uuliyadu saaran tahay si gaar ah dhammaan mas'uuliyiinta dawladda because waxay u shaqeynayaan waa bulshadii waxay saaran tahay kaleeto booliska iyo ciidanka in la xisaabtan la sameeyo la xisaabtankaas waa tan meesha ka maqan oo tacadiyo badan sabab u noqota inay soo noqnoqdaan sharcigana waxa loo dejiyaa wax kala maaha waa cabsi gelin kan maanta galay markii lagu qaado biri inuusan ku noqon baa loogu targalay weeye warmurtiyeedkii ka soo baxay isla qaadanay wuxuu ahaa in la xoojiyo amniga in bulshada loo sameeyo wacyigelin ballaaran taasoo lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka jira sidii uga hortagi lahaayeen iyo sidii macnaha ay uga jawaabi lahaayeen haddii ay dhacdo iyo in aan ku baraarujino dhibaatooyinkaas in aan ka suulino ama aan yarayno labo in la tayeeyo laamaha amniga iyo cadaaladda lalana xisaabtamo in la sameeyo in bulshada loo sameeyo shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqaystaan maadaama dhaqaale la'aanta iyo shaqo la'aantu ay ka qayb qaadato amni xumada iyo dhibaatooyinka maanta ka jira deegaankeena in bulshadu ay la shaqayso dawladda oo ay bulshada iyo dawladda noqdaan dad isku xiran oo hadafkooda uu meel ka soo wada jeedo si loo yareeyo dhibaatooyinka aan hore u soo sheegnay inay noo badiso seminaarada oo dadkan tababarka u badiso oo adeegsato dad khibrad leh macallin laga dhiga dad khibrad leh oo dadkan wax u sheegi kara in macallin laga dhigo haddii booliisku fadhiyo maxkamaddu fadhido asluubtuna fadhido waa academy waa galaas baan ku jiraa markaas galaaska qofkii wax ka bari lahaa dadka laga rabaa